soo dhawaada ay khiyaaray meel kastoo dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka culus ee faraha lagaga gubtay ee u dhaxeeya ciidanka militariga Itoobiya iyo ciidamada Tigrayga dagaalku saddex jaha ayuu ka socdaa laakiin xooggiisu waxa uu ka socdaa galbeedka ayuu ka socdaa dawladda Itoobiya waxay daabushay kumanaan kun oo ciidan oo militariga dalkaasi ah ayaa si toos ah loo dagaalgeliyay diyaaradaha qumaatiga u kacaya lagu daabulay maadaama ciidamadii hore ay baneeyeen difaacyadii jilibka ayaa la soo dhigay xoogaga Tigraygu waxay soo bandhigeen ciidan military ay markii ugu horeysay warbaahinta afka Tigrayga ku hadasha oo ay tiri sanada kadib mar kale ay ciidamada dawladda Itoobiya soo dhibeen Tigray horta dagaalku si toos u bilowday dawladda Itoobiya iyo xoogaga Tigray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed shirka xuduudaha ee ay shaaca ka dhacaya ee madaxdu ay iskugu imanayaan markuu ka soo laabto dagaalku hadduna inta waji kala sii yeelanin waxa uu ku dhawaaqi rabaa sareynta sharciga sida xogtana loogu sheegay laakiin maadaama marti loo yahay haddii lagu dhawaaqa sareynta sharciga dalkana in heegan buuxa la geliyay hawadu ay xiran tahay khatara kala ka iman kara dawladuhu way cabsan karaan waxay u cabsan karaan madaxda dawladuhu way cabsan karaan waxay u cabsanayaan dalkana dagaal baa laga iclaamiyay gantaalada hawada laga ridaya drones badan baa hawada loo diray bayrakdaar baa la diray Tigraygiina waxay cadays ayaga hadda Tigraygu waxay leeyihiin waxaan ku duulay dhul naga maqan oo dawladda Itoobiya sanada uga fadhinay inay gacantanada soo geliso oo ciidankeeda iyo maleeshiyada axmaarada kala laakiin wayna diiday gacmaha naga ku xoreynaa bali laakiin waa xaqiiqo inuu Abiy dagaalka galayo inuu iclaaminayo sidoo kale midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay Itoobiya inuu dagaal ka qarxay si degdeg ah in loo joojiyana loo baahan yahay sidoo kale qaramada midowga ayaa ka hadashay iyaduna waxay tiri waa in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo midowga Yurub baa ka hadlay dagaalku adduunka oo dhan baa ka hadlay inuu dagaal toos u bilowday nin walba waa warka Abina Borisku qariska uu ka soo baxaya saacada kadib horta arintaas ku bishaaraysta dagaalkii Tigray iyo Itoobiya toos buu qarxay sidoo kale koonfurta iyo barigaba ayadana waa laga maqlay dhawaaqa hubka inkastoo ka galbeedku uu xoogan yahay ayay xaaladu u badan tahay inay meesha ugu adag ay tahay qodobadaas ayaan faaqideena khiyaari barnaamij shirgareey meel fogna gaarsiiya like-tu waa muhiim muuqaalka ay fogeynaysaa idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantiin aynu u guda galno waxaan ku bilaabayaa shirka Aisha ee loo madlan yahay saacada kadib inuu furmo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay inuu shirkaasi yahay mid lagu tusayo in Itoobiya uu ka jiro gobol khayraad badan oo maalinba meel indhaha caalamka soo jiita leh meeshaas waa meeshe waa dawlad deegaanka Soomaalida horay waxaad u ogeydeen madax badan shirkadaha dunida ugu waaweyn inay goda yimaadeen inay dhagax dhigeen warshadaha hadda socdo la yiri 2 sano ilaa 4 sano ku dhamaanayaan oo warshada bacriminta qaaradda Afrika inay magaalada goday ku taal hadda waa qaaradda Afrika warshada bacriminta qaaradda Afrika oo qalabka maartay waxyaabaha beerista geedaha maartay wax lagu beero dhan soo saaraysa inay dawlad deegaanku nasiib u yeesheen adduunka hadda soo dhoofista Itoobiya kaliya sanadkii bilyimis soo rarata qaaradda Afrika oo magaalada goday ka adeegan doonta oo loo kala saari doono doomo iyo maraakiib meeshii laga dhoofin lahaa Itoobiya diyaarinaysa laakiin Ilaahay waxa ka baryeynaa inta ay dhamaanayso inuu Itoobiya nagu simin oo halka noo joojinin waa haddaan nasiib leena oo dad wax laga aqbalayanahay oo Ilaahay noo gartay inaan wax anagu lahaano oo cadow Ilaahay ku korinin yaan rajeynaa insha Allah taasina way dhici doontaa sidoo kale madaxdu waxay ka hadlayaan in dalka Djibouti Itoobiya ay faragelinta ka dayso maleeshiyada canfarta ay ku kicinaysa inay ka dayso
in Ethiopia ay faragelinta ka dayso dhulka Soomaaliyeed in haddii Somaliland la weerari iyo hadday Soomaaliya gaal la soo kaxaysan oo meeshay doonto ay ka galayso inayna Ethiopia ayna u kala heelinin Ethiopia waa inay ka ahaato meeshu inay Soomaaliya horta waxa Ilaahay mahadiya inuu shirkan iyo Somaliland xaaladeeda iyo Ethiopia xaaladeeda inay waqti fiican isku soo aadeen oo Abiy una aad u murmi doonin tusaale yar ku siin Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaare qoomiyadda uu ka soo jeedo waa qoomiyad Oromo ah Oromo waxa la ku shid Oromo luqadda ay ku hadasho dawladdii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad Barre Ilaahu naxariistay uu hogaaminayay ayaa u qortay bari alifbeetada yaa u qortay Oromo marka yaa cadow ah Abiy oo aduma Oran baa tahay mise cid kala tahay Abiy kursigiisu hadda wuu ligliganaya yaa ku soo duulay nimankii manaxariistayaasha ahaa ee jilbaha gaagaabna ee xabad wax ku fahmayay ee asaga Abiyna uu ogyahay Abiy wuxuu soo arkaa Ethiopia inuu haysan karo haddii Tigray laga xaliyo laakiin maanta Tigray Eritrea taageerayso Tigray Masar taageerayso oo dabaabaad wata ninka xoog badan horta waxana qaba maqashay Tigray waxay diideen Abiy xataa haddii intuu ka aamuso maanta oo galbeedka cagta Maryam Walqaytar oo ilaa Suudaan Humeera ay qabsadaan sababta go'aankoodu waa saas waxay ku leeyeen annaga Suudaan looma dhaxan karo axmaarada Suudaan degan xuduud waa in ka gurto dagaalka hadda meesha ku socdo waa Suudaan meesha u siduulayaan waa Suudaan hadda Tigray oo Suudaan isku furtay oo xad cid ka hor istaagay ilaa Masar isku fuuqsatay Eritrea Ethiopia xuduud kala lahayd ayagana xidhay qaybtii Suudaan ka xidhay Abiy waa dareemi kartaa dagaalkan hadduu galana Tigray dagaalku kuma ekaanayo la soco waa Addis Ababa nimanka sanadkan hubay wataan waxaa la sheegay 200 oo dabaabaadka culus ah oo gaadiidka waaweyn oo yaqaan kaarayaasha inay hal mar wabiga takasa ka talaabeen oo lala yaabo leeyahay Raxmad dawladda Ruushka inta kaliya laga garanayo waxa way calanka Tigray ka babanay Abiy waa ogyahay militarigiisa uma barbaray karaan muxuu sameeyay marka maanta Abiy wuxuu ku gorgortami doonaa Soomaaliyay qoomiyadda Oromada yaa intaan xilka hayay dhib aan sameeyay eena dakana u noqonin iga qora taas u dhihi doona kursigan inaan sii joogi doono lama hubo kursigan inuu Oromo ka wareegaa suurtagal ah Tigray inay Addis Ababa yimaadaan ma suurtagal ah Abyssinia way iswada taageer Eritrea nimankaas oo Eritrea Abyssinia la isku dhax waagood Abyssinia isla noqon iyo isla han jireen boqortooyin hore dadku soo maamul jireen Eritrea iyo Tigray la isku dhax axmaaraduna isla Abyssinia waa xukunku inuu wareegaa suurtagal ah waxaa suurtagal ah Ethiopia in la kala diro nimanka Tigray qorshahay wataan waa laba la yiri waxay leeyihiin baa 3 sano dalka ma maamulna koow saas qaalam ka ursanaa burburkiina gaaray hantiyadeed taan dhisan oo dhaqaalaha ka boobno on qolo walba ganaaxiye lacag ku soo rogno markaan meeshana dhala ka dhintaan baarlamaanka Falastiin kala diraa kuwana waxay leeyihiin maya Addis Ababa intaan nimaano ku kala yaaca intaan aan ka soo laabano wax isfahamaba sababta haday dawladda dhex meesha ka baxdo ma madaxweynaha Oromiya madaxweynaha deegaanka Soomaalida yaa u yeerin karo uma yeerin karo xabada san kale iska gelin madaxweynaha Anfarta oo ra'iisul wasaare jin dawladda ay gaashaan dhig jirin ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida u yeerin kara ma dhul bay Anfar naga haysan kartaa waa maya Anfar dhul naga haysan karto Oromo dhul naga haysan karto Tigray dhul naga haysan karaan marka meeshan waxay u egtahay meel lagu kala tagayo dhanka waqooyi aan dhaho waqooyigana xaaladdu waa adag tahay khiyaaray dagaalku waa sii cuslaaday marka ka dambeysana waa uu ka sii daraya nimankii Tigrayga ahaana waxay markii ugu horeysay baaxayeen in hadda dagaalkan ciidan militariga Ethiopia ku qabteen cutubiyadii ugu horeeyay la qabtay maqala ayaa loo qaaday waa la soo bandhigay Tigrayga oo wareysanaya oo weydiinaya war qabiilkeed tahay qoyskeed ka dhalatay waxaan arkay mid ahay waxaan ahay buri Orom baan ahay Orom waxaan ma Tigraygu rag badan bay birta ka asli doonaan nimanka waa niman xanaaqsan waa niman dakanoobay waa niman la baabi'iyay dhinaca Anfarta hadda way soo galeen laakiin dhufaysay xidheen baa la yiri meeshii istiraatiijiga wadadii ay mari jireen gaadiidka ee raashinka qaada UN iyo ka iman jiray dhanka Djibouti
halkaasi joogaan baa li jidka cad iyo joogaan ma inaad xagga tareenka soo gaarin qaybta jidka cad bay joogaan baa layidhi hadda ay fadhiyaan dhankana ayada koonfurtana dhammaan way qabsadeen wada waad ogtihiin salambasay la wareegeen alamaatay la wareegeen raaya haba sheegin kooram ha sheegin qoba ha sheegin xuduudka wool la yimaadeen halkaasi hadda joogaan marka wixii kasoo kordha halkay kusoo gudbinaya khayr barnaamij shirkada meel fogna gaarsiiya intaan midkaan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa inoo idgeliyo